waxaan kala saari la'anahay ama aan aad iskugu dhex qaldeena gabdhahaygiyo ninka ku qaba adiga ood gogosh wadaagtaangi lacag la dhigto $4,000 ayaa ninkayga u dhiibtay meel aan ku sheegana ma hayo $4,000 ninkaaga u dhiibatay hadda anaa ku dhahaya samir iyo iimaan allaha kaa siiyo inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun 4,000 oo kale saad ku abuuri lahayd caqligii aad ku samayn lahayd hadda iyo kow waa inaad ka fikirtaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو عصبي ولاشين الرومي channel وإننا البيت بيتكم والبنت بيتكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا أفضل الصلاة والسلام. وإن السلام يا دمانتي بإن عافمات قبتان بارجينيا سأنو عافمات قبينا إنكم إيقو عافمات قبتان إلها يا مهدا أسكر هدا دوغي عصبت هاي إتا مركي كوغور سنزوب وغنيسيد channel كنو ليكري ليتو حيقا عاوين ساينو فيديو بناك يوبحو سبسكرايب كنو صار أصحاب تادنا لسي وذاك سيئيقون أينو قصو بيران ما شاء الله. إنتا مركي آكن يمانو ومر لباد إي بروغرام كيني دقالة oo mar walba aad nagala socotaan aaladeenan Rumi Channel. Barnaamijka dhaqaalaha waa barnaamij aan isku dhiirigelino haday taa markay kugu horeyso oo aad maanta aad nagu soo biiraysid laana waxa u jeedaa gabdho badan oo maalin walba dhahay waa cusubna hadii aad nagu soo biiraysid barnaamijka dhaqaalaha oo barnaamij aan weekii dhowr mar aan soo deyno ama aan ka soo hadalno oo isku baraarujin ah ama dhiirigelin ah waxa kale noo socdo challenge hal sano ku aadan qofkii caafimaad qabo ilaahay caafimaad ku gaarsiiyo ki ilaahay uu nolol ku gaarsiiyo aan isku challenge gareynay gabar walbaba maxay dhigan kartaa hadaba gabar walbaba maxay qabsan kartaa barnaamijkaas hadaad nagala qayb galaysid bishii January ayaan bilownay December ayaan ka soo hadalnay January ayaan bilownay maanta February ayaan maraysaa wali cusub baanahay hadii ay tahay challenge-gaaga wax qabsashada ama wax dhigashada aad nagala qayb galaysid welcome ayaan ku leenahay nagala soo qayb gal wax dhigashadana waxa weeyaan gabar walbaba inay ogaato ama ay barato qaabkii u maareyn lahayd biilkeeda ama nolosha qoyskeeda hadii aad fahantid qaabkaad u maaleyn lahayd nolosha qoyskaaga waxaad ogaataa wax badan inay ku hagaagi doonaan wax badan inay ku dhigmi doonaan gacantaaduna inaysan marnaan doonin bini aadanna aad ka maarmi doontid hadaba fiidiyogan maanta wuxuu quseeyaa gabar abaaya ayaa talada soo weydiisatay taladaasna waxay ay ku guda jirtaa barnaamijkeena dhaqaalaha hadaba waxyaalaha mararka qaarkood aan isku dhex qasna ayaa waxay yihiin gabadha zawjkeeda ama ninka qabo inay ka dhigato bangi laba qof waxba ha u dhiibanin waa ninka ku qaba iyo walaalka waxa u dhiibatid ama xoolaha ka galana ha ka daba tagin waa inaad ka samartid waay laanahu walaalka markaad wax u dhiibatid sidii wixii aad walaalka ugu dhiibatid ee uga soo baxaan way adag tahay ninkaagana kadalik hadii aad wax u dhiibatid sidee wax uga soo baxaan way adagta hadaba waa gabar labaad oo leh waa la dhacay ama qaab sarbeeban ayaa la ii dhacay hadii gabdho horta markay wada hadlayaan ama gabar ay ka soo hadasho wax ku dhacay waxa had ii jeer ogaataan inay qaar badan oo qarsoona oo rabay qof barnaamijka ama sheekada u bilaabo oo kaliya sugaayay markii sheekada loo bilaabana iyaguna dib u yimaado oo yiraahdo hey ana waxana igu dhacay waa waxa aan rabno marka inaan iska dhiirigelino ama iska wacyi gelino gabar walbana kulay laguma jeedo wajigaaga looma jeedo laga yaabee magacaaga xataa waa bedelan kartaa commentiga magac kale ku qoran kartaa hadii aad rabtid in aan lagu ogaanin oo aad diidaysa in magacaaga xaliimooyinka dariska ay ku ogaadaan hadii jeer waxyaalo gabdhuhu ay isku maaragtay ay isku aflagaadeeyaan ama isku caayaan weeyaan wada Soomaalina waxyaalo badan waxa jirto lagugu dhaawacayo oo adiga aada xaq u leeyahay lagugu dhaawaco hadana lagugu dhaawacayaa jirto taasina waxay keenayso tababar la'aanta iyo cilmiga oo maaragtay aad noogu yar hadaba gabadhan abaaya waxay tiri lacag gaaraysa $4,000 ayaan waxaan u dhiibtay saygeygii iqabay aniga maqal ma jira $4,000 ayaan u dhiibtay waxaan iihay deedna waxay tiri 4,000 hadda ayaan u baahday inaan ku shaqaystaan rabaa inaan wax ku qabsadaan rabaa mar walba aan iraahdo lacagteeda isiina wuu ii marmarsiyoonaya ama wuu ii leexleexanaya saan ka arkay oo wajigiisu iigu cadeeyeen waxa weeyaan lacagteeda inuusan isiinin uu isagu lacagtaas u meelaystay hadaba gabadhan walaal ah tala ayay doonaysaa sidee ayaan yeelaa oo lacagta ninka uga soo saara ayay taagantaa walaal horta aniga hadii aad taladeeda qaadanaysid lacagtaas waxaan ku dhihi lahaa iyada ah oo 4,000 ah miyaad wax saxiixa ku bixisay
maya miyaad markhaati ku bixisay maya dee dumar baa tahay oo ninkaagiibaa intaa la tagtay waqtigii maxaan ku rahdaa aad yaa ayaad lacag yar baan haystaa hoo xaajo lacagta ii hay hadda haddii lacagtii aad maxaan ku rahda odagaaga ku qanacsatay oo isaga qanaaco aad ku qancinaysa aad lacagtii ugu dhiibatay oo isdhehaysa xaajigaaga kalsooni kaga hel hadda walaal xaajigaagu ma bangi alsalaam baa bangi salaam miyaa xaajigaagu soo qof bini aadana ma aha yaase kugu yiri ninbaa inta lacag loo dhiibto bilaa saxiix bilaa markhaati ayaa waxaa la yidhaha lacagtan yahay haddaba mid baan kuu sheegayaa lacagta ninkaaga kaa gasho oo familigaaga kaa gasho ama ninkaaga ama walaalkaa kaa gasho ama dee whatever aabbaha adeerkaa wixii nin ahaba dee lacagtu ee kaa gasho iyo markii lacagtaada si sharci ah aad ku dhiibatid farqi ayaa u dhexeeya markii aad si sharci lacagtaada aad ku dhiibatid lacagtaada passport baa lagaa qaadayaa saxiix baa lagaa qaadayaa manajarkii lacagta kaa qaada ayaad ogtaa wejigiisa oo aad taqaanaa lacagtaada meesha ay ku maqanta iyo meesha ay gelaysaa lagu tusayaa waxaa lagu siinayaa lambar aad lacagtaada kala socotid xag siday u socotay saa u shaqaynayso waxaa lagu sheegayaa inta ku aad khasaartay sanadkii inta aad faa'iiday laakiinse marka aad tiraahdid taas marka haddii ay musuqmaasuq ee kaa gasho ama lacagtaadu ee kaa lunto xaq waxaad u leedahay inaad maxkamadda tagtid ilaa waxaad haysataa bifays ama proof caddayntaad aad maxkamadda la tagto aad tiraad shirkaddan lacag baan gashtay saxiixaygiina waa kanaa caddayntiina waa kanaa waxaan rabaa inaan dacwo aan qabsado lawyerna waad qabsanaysaa taa waa easy marka si easy ah ayaa taa xoolahaaga ku haysa laana xoolahaagii si sharciyeysan iyo qaab sharciyeysan baad u bixisay ama lacagtaadii markaad u dhiibatay qof familigaaga ka mid ah oo cidna xataa haddii markhaatiyaal ay jiraan walaalaha ah mararka qaarkood markhaatiyaasha waxaa laga yaabaa inay adiga kaa hor yimaadaan ay ku yidhaahdaan waxaas anaga waxba kama ogin iyagoo diidaya walaalaha in ay isku diraan had iyo jeer soomaaliduna xaqa wa ay qariyaan waa dad xaqa qariya ayaa nahay qofka markaa wax haysto ayay ka daba dhilifleeyaan oo ka daba nacmleeyaan qofka xaqa laga galayna waa la riixaa maadaama uu faqriya waxba uusan haysano qofka markaa hooseeya uu yahay marka walaal macaanto talada anigu aan ku siinaya waxa weeyaan ma si dadboon oo kale sida adiga lacagta lagaaga qaatay lacagta adiga calaaradaaga ku dhiibtay adoo raaliyaad dhiibtay soo maaha lacagtii 4,000 oo isku xiran inuu hadda ku siiyo ninkan aniga halkaan ma soo dhiganay reer community-na gabdhaha community-gana waa soo qori doontaan u malayn maya lacagtaas inaad heli doontid oo lagu siin doono laakiin ka dumar ahaan haddaan kula taliyo aniga qaab kale oo lacagta aad ku heli karta ayaa jirta haddii aad si fiican u fakartid number 1 in aad iswaalin inaad kiiska iska waalin laana waad ku jirtaa maanta adiga ayaa lugahaaga gacmahaaga adaa isku aasay anuu meeqa in lahaa lacagta cid ha iska siinin cidna lacagtiina ha u dhiibinina adiga lacagtaada qof handicap ma tiid qof caafimaad qabaa tahay saad ku keentay marka ninkaygaan lacag u dhiibanaya oon leeyahay ii qabo who is ninkaaga yuu yahay ninkaaga 3 baa kuu keenay nolol baad wadaagtaan ayitem noloshaas way dhammaan kartaa ayitem nolosha way dhammaan kartaa haddaba si kale ama siyaabo kale inaad lacagtaada uga qaadato waa laga yaabaa adoo meelo kale soo maraya oo dhahaya waxaasaan u baahanahay xaaji ma isiin kartaa adoo si kale adiga waddo kale adoo adeegsanaya wax macquul aan ahayn 4,000 inay hadda kuu soo noqoto oo intuu ku yiraahdo xabiibti 4,000 aad ii dhiibto waa kane hoo qaado te waa mid ilaahay ka baqaya oo malaha wadaad ah oo diin leh ma sheegin laakiin inta u badan raggeena Soomaaliyeed lacag ka gasho ha ka sugin laba qof asaan kuu sheegay walaalka iyo ninkaaga lacag aad u dhiibato ama aad siisay iska sii waxaad tiraahdaa lacagtan adaan ku siiyay qaado ama ii hay de walaal bangi ma ahan sababta ugu dhiibanayso dhan baana qalad ah hal habeen baa maxaan ku iraahdaa ayaa si fiican ugu qanciyay lacagtii waad ku raali gelisoo xaaji oo lacagtan ii hay hadhowtin waxaa leedahay lacagtayda lacagtaas tagtay mac salaama ha ka taas warkeeda dambe ha soo qaadinba ilow forget about this lacag sheeko yara iniga sheekeynayaa oo social media intaan ku jira dhacday waxaa jira wiil caan ah oo ruwaayada dhigi jiray gabar buu qabay 4 caruur oo qurqurux badan bay u dhashay gabadhii wiilkii
intaas isku dhicin ka hor ayaa waxay u dhiibatay lacag adiga $2,000 $7,000 bay ahayd lacagtaas ma garan karayo ma 4,000 ma 6,000 adigu lacag markii cadadeeda waan garanay hadda waan ilaaba ayay u dhiibatay lacagtii markii gabadha gabar shaqaysatay ahayd cilaankan marin jiray tiri waa xamaalin jiray tiri waa shaqaysan jiray lacagtan waxay tiri isaga ayaan u dhiibtay gabadha dhaar bay qac ka siinaysaa qofka realiga markuu hadlaayana indhihiisa ayaad ka dareemaysaa qofka beenta sheegaya iyo qofka runta sheegaya almuhiim gabadha way dhaaratay waxay tir lacagta ninkaas u dhibtay tolkii si hoos ay ula hadashay lacagtii markii laga siin waayay social media soo farsatay TikTok soo farsatay ilmihii bay TikTok soo saftay waxay tiri guri ma haysto ilmihii waxaan siiyay ma haysto ninkiina wuu i furay banaankaasaan ka taaganahay isaguna waa arkaysaa maalmo dhowciyar oo saa iskugu marayaayo oo meelaha la taagan yahay lacagtaydii bay tiri ninkan ha layga siiyo lacagtaydii lacag baan u dhiibtay lacagteeda ha layga siiyo lacagtii yaa ka siinaya meela lacagtii samari iimaan gabadhii furitaan lacagteedii oo la qaatay ilmaheedii oo la biilin baa la iskugu daray ilaa social media isoo istaagtay tiraado biilna ilmahayga ma haystaan wallaahi billaahi tolaahi bay tiri ilmahayga saaka shaaxan u kariyay ba waxa ay cunaan oo cabaan ugu dambeeyay tiri cunto aan dab u saar ma hayo tiri inuu biishan ugu diiday 20 jirkii dhalayna magaaladu geeska degan yahay meel aan seexda ma haysto gabadhaas maanta haday lacagteedu iyadu ay haysan lahayd ama lacagteeda dad shaqeeyay ee u dhiiban lahayd ay darsan lahayd de maanta fildarada ma aragteen dhibaatada maanta ma aragteen laana waxana isku haleynaysan waa bini aadan ninkan wuu waalan karaa ninkan ku qabo iska daa furitaanka inta naga dhig wuu waalan karaa maxaan ku raadaa yaa ku raba adiga ii sheeg marka hooyo caruur dareerinaysa wallaahi kan dadka kugu dhawaa laad kugu dhufanayo 2 maalmood markuu cunto ku siiyo wuxuu ku leeyahay ilmaha dadkii dhal u gee naga hor dhaqaaji marka abayaalo adoo waxaa haysan kariyaan lagu haynin lacagtaada hayso ninna ha iska siinin ninna ha iskaga dhibin walaa ha kula dhasho walaa ha ku dhaxo u dhaxdid ayraade ha iska siinin lacagtaada adiga hayso haddii aad haysin weydina de shalayto walaalo ma horeys way dambaysaa baa la yidhi iska shashalaayo ani commenti 20 xabo barstomal maalinta sheekooyinkan maqlo maalinta barstomal ku cuni jira weeyaan marka waxyaalahan oo kale waaye aragnimaha idin noqoto gabdhaha kale daawan doono fiidiyowgan waaye aragnimaha idin noqoto niman si aad wax cad u heshid lacagtaada meel cad oo waadixa oo la wada ogyahay ku baxso halkaas ay iniga harayaa oo walaashiin Rumi Channel oo inala inta fiidiyowgan iyo fiidiyo kale oo ku qorxad aan ku mid doono waxay iniga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fi amaan